xitaa marka postpartum horta kugu dhaco waxyaabaha yareedee basic ah ee dee caadigaaba kugu adkaadaba baby blues haween kasta bay ku dhacdaa is just qof kasta marka ku dhacdo response-ka ama siduu dareemkiisu kala duwan yahay intay tahay waxan wax ku dhaafaya taasid ayaan iminkan ogyahay oo de ii fududeysay experience-kan labaad dee dhalmaha ta kalena caawitaanku waa muhiim walaalayaal caawitaanku waa muhiim walaalayaal sii tihiin fiicantihiin alxamdulilah anoo nii fiicanahay horta maanta waxaan doonay intaan niyar duubo muuqaal kuma talagelin intaan muuqaalkan aan duubo waxaweyaan muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaaladeenii dherigelinta waxaan doonay intaan ka yar hadlo horta postpartum mar hore hadda channelkayga malaha waxaa ku dhex jira 3 muuqaal aan ka hadlayo postpartum xagga hoosta comment sectionka ayaan soo dhigi doonaa muuqaalada sida dee uga faa'iidaysatiin iminka aan ila hadlayo umul ayaan ahay aduu iminka aduu malaha 5 toddobaad wax socota weli 40 bixeygii ma gelin so hablo badan baa laakiin ii soo qoray oo iyaguna malaha umulay oo rabay intaan ka yar hadlo postpartum laakiin muuqaaladeeda kale soo daawada aan ka hadlayo qisadeeda postpartum iyo mental health iyo waxaas horta sababtan dib u sameynayana de waxaan dad badan ayaa channelkayga kusoo biiray marka waxaan sariba dadka dib adan ugu duub si dadku uga faa'iidaystoon insha allah horta waa run waxay dadku eraadoon dhalmo kastaba waxa weeyaan different way kala duwan yihiin imika waxa weeyaan ilmahaygii labaad aan dhalay cunugaygii labaad markaas waxaan advice-ka talada ugu horeysa ama waanida ugu horeysa aan siin lahaa haddii aad postpartum ku jirtid imika sababtay horta igu fudud tahay oo dee postpartum imika aan dareemin inankayga horta wiilkayga waan dareemahayd postpartum imika laakiin uma malay intay ku dhacday waayo imika de bil kadib caadi ayaan nahay alxamdulilah in yaroo baby blues ayay ku dhacay taana waan ka hadli doonaa insha allah laakiin waanida kilaatama aan isiin lahaa waxay tahay maskaxdaada iska dhaadhic intay tahay waxaan aad dareemaysid walwalkan daalkan iyo waxaan oo dhan waxa weeyaan waqti ku dhaafaya wax ku dhaafaya taasina walaahi waxaan imika aan dareemaya waayo inankayga markay igu dhacday postpartum waan ka naxay waayo hooyanimada igu cusub ahayd markii igu horeysa ilmahan dhalaya ayay ahayd nolosheedii oo dhanba ayaa isbadishay markaabaan islaa khalaas noloshaad mabacaynkanba taasid baadana walwal ii keeni jirtaba laakiin imika weli daalika waan dareemayaa weli habeen kasta waan soo jeedaa waayo ilmahayga naas ayaan siinaya gabadheeda markaas laakiin waxaa ii fududeynaya waxaan oo dhan waan ogyahay intay tahay wax idhaafaya wiilkaygu alxamdulilah isagoo 4 jir imika 4 jir markaas stages badan ayaan arkay ilmuhu markuu yaryahay oo dee imikaba dhashay waa markuu hooyadii u baahan yahay the most maha so taasi daraadeed baa malaha daalasa haddana waa stage kalaa iman doono oo dee ilmuhu hurdada barani doono marka hurdadu malaha ku yarbeeri doonto anigu horta waxay gadhaadhecsana postpartum kanba waxay ka socotaa hurdo la-aan hurdo haddaa seexanayn maskaxdooda way qaraabasaaba maskaxdaada caadi wayba tiidba markaas ogow intay tahay waxan wax ku dhaafaya taasid ayaan iminkan ogyahay oo de ii fududeysay experience-kan labaad dee dhalmaha sidaas waanida ugu horeysa ogow intay tahay wax ku dhaafaya a ka nixin waa daal waa hurdo la-aan ayaa ku haysataa jirkaagii nafaqa malaha ka maqan laakiin waxana wax ku dhaafaya ilmuhu weynaani doonaa hurdada u fiicnaani doontaa adiga waa seexan doontaa jirkaagu fiicnaan doonaa markaas taasid is xasuusi oo wax ku dhaafaya tanna oo wax ku dhaafaya ta kaleani la wadaagi lahaan haddaa umul aad tahay markii hore horta waan ka hadlay naftaada maalin kaste naftaada ku qasab intaad samaysid wax kaa yar farxinaya xitaa markaa postpartum horta kugu dhaco waxyaabaha yareedee basic ah ee dee caadigaaba kugu adkaadaba anu waxaa usanaya inankayga maalin baa jire
aan soo kici jiray anoo cadeen anoo foolaqon oo bas ilmaha saa u dul joogay markaas subaxdii markaas soo kacdid waqti yar qaado intaa foolaqotid cadayatid cadar yar iska marso naftaada wax yaroo kaa farxinaya maalin kasta samee anigu imika waxaan sameeyaa imikada hooyaday baa ila joogta alxamdulilah taana waan ka hadli doonaa caawitaanka hooyaday ayaa ila joogta markaas waxdiyada badankayga haysa markaan intaan shaqeynayo ama de guri shaqo ama de businesska waxaas markaas maalin maxaan sameeyaa coffee yar ayaan doontaa oo gaarigaan iska qaataa waxaan maraa meesha ugu dheer awal bas waxaan tegay coffeega gurigan kusoo noqonay maha imika meesha ugu dheer ayaan soo maraa bas intaan maskaxdeeda waqti aan u qaato quraan iska shido xitaa music iska shido wax naftaada ka farxinaya waxaan siisiyaa malaha 15 minute wax ka aduu inta nafteedu ka rasaba ama waqtigaan haysto 15 minute ayaan kalkoli siisiyaa intaan basaa u soo maro gaariga meel dheer aan soo maro coffee yar ayaan soo qaadan wax nafteeda ka farxinaya markaasaan quraan iska dhagaysan xitaa walahi runteedan sheeg mara music aan shitaa waayo bas waxaan rabaa nafteeda intaan ka farxiyo so waxyaabaha yaryar uma baahnid wax waali ah wax yar maalin kasta isku qasab intaa samaysid maalin bay igu adag tahay aan daalan yahay oo aan bixi karin laakiin haddana markaan waan isku qasbaa waayo waan ogyahay markaan baxo kadib oo guriga kusoo noqdo waan roonahay so maalin kastaba samee wax naftaada ka farxisa ta kalaan ii sheegi lahaana gurigeyga horta intaan dhalin ka hore muuqaalada waaba aragteenba waxyaaba badan baan kale ka bedelay gurigeyga waa nadaamiyey waanse sii diyaarinay intaan dhalin ka hor taasina aad iyo aad bay caawisa waayo imika gurigeyga waa nadiif organize wayaan ta kalena caawitaanku waa muhiim walaalayaal caawitaanku waa muhiim haddaa joogtida dhul oo family kula joogin inteer bas familiga la hadlasid ama anoo imika matalan gabadh ayaan hayar gareeyo gurigay ii timaada 2 toddobaadba kol oo gurigayga shaqaysa taasina waxay ahayd markaan noqday 6 bilood adu 2 bilood ka hor adu waxay kaasa markaan culuslaadada kaneefka ama musqusha aan ka shaqayn kareyn khalaas inan ayaan lacaga siiyaa 2 toddobaadba gurigayga ii timaada oo guriga iga shaqaysa lacagtu waa wax kaa baxaya okay aku dhagina lacagta naftiinana u quura maalin dhaweed waxaan soo iibsaday mashiin oo dhabarka u fiican taasi waan tusi doonaa markaan mashiinka intaan iibsan waan fikir waxaan islahay waa qaali ma u baahan tahay dan markii dad ma insiray soodiga imsa wax u soo iibiyay ilmahan cusub imsa wax ayaan soo iibiyay markay tahay caruurteena markay tahay gurigeena markay tahay odageena daha ma fikirno oo soo iibinaa markaas laakiin naftaada markay tahay asir waayar markaa ay nastaxa shadaag iska daara naftaada u qoor anaaba taladeeda qaato iswaagii waan soo iibsaday so naftiina u qoora wax kasta u baahan tihiin oo muhiima u qoora naftiina ta kalena aan ku soo xiri lahaa malaha videogan ma dooninta aad iyo aad u dheereeyo waayo marar badan ayaan ka hadlay postpartum depression channelkayga ta ugu horeysa walaalayaal horta ogow markaa dhashid postpartum ku dhacaya maaha wax laga naxo wax weeyaan bas hormonal waa jirkaagii oo 9 bilood qof korinayay ayaa ku soo noqonaya siduu ahaa markii hore marka hormoneskaagii waa dib isku soo celinaya dad ayay ku fududahay dadna kuma fududo markaas waxaan ku leeyahay haddii ku haysato dhakhtarkaaga u tag haddii kaniina qaadanaysa kaniinkaaga qaado waayo isku mid maaha kani iyo ka kale depressionka kale waxa weeyaan kaasi waa complicated laakiin kani waa wax ku dhaafaya haddii u baahantid kaniin qaado laakiin waa natural ta kalena dadku wax badan ay dadku ka hadlin waxa weeyaan wax la iraado baby blues haween kasta bay ku dhacdaa is just qof kasta marka ku dhacdo response-ka ama siduu dareemkiisu kala duwan yahay right laakiin baby blues-ka 2 toddobaad ee kadib markaa dhashid waxaa tahay very emotional waa iska ooyi ama farxad moodkaaga waa caynkaas so waa very normal baby blues-ka
ayaa la yiraahdaa dhakhtar kasta marka gabadhu ka soconaysa inta ka bixin dhakhtarka waa inta loo sii sheegaa laakiin unfortunately dhakhtaro badan kuma sheegan hada Africa joogto lamaba yaqaanaba laakiin wax baby blues ayaa jira insha Allah barta taasid oo isku diyaariya right so taasid waa taasid laakiin wax kasta wallahi walaalayaal ani bas imika waan maalin baan fikiri waxaan islahaa maxaa ka duwan dhalmadan inta kale maxay u kala duwan yihiin fikradeeda isku mid hayn imika experience ayaan u leeyahay habeen markaan soo kaco madaxu xanuunayo kama naxo anxiety ma keento daal waan dareemaya dareenkayga waa isku mid laakiin fikradeedii baa isku mid hayn waan ogahay waxaan intay bas temporary tahay wax idhaafaya 3 bilood kadib ilmuhu iska fiicnaanaya right markaas taasid ogow waa wax ku dhaafaya ka walwalin iska duceyso quraan iska akhriso waxay yaryara naftaaduna u baahan tahayna isku qasab horta maalin kasta cadayo maalin kastana foolaqo dadka kale muuqaaladan daawanaya weli dhalintaas way ku qoslayaan laakiin wallahi waa wax aad kugu adkaanaya haddii aad postpartum kugu dhacday Africa dadka joogana way nayar dhaamaan waayo caawitaan ma family ayaa la jooga laakiin xagan marka kaliya tihid waa daal odayaaguna shaqeynayo oo wax kasta aduu ku sugayo oo ta kalena ilmuhu naas kaa sugayo wallahi wax sahlan ma aha taasi daraadeed buu ilaahay awood badan siiyay hooyonimada so warkaas walaalayaal hablaha ii soo qoray taasina ma nila wadaagayaa it's okay caawitanada u baahantiin dhakhtarka taga muuqaalo daf YouTube waa daf muuqaalo English hadaad taqaantid muuqaalo badan oo postpartum ka hadlaya way jiraan jirkaagana nafaqa sii supplementkaaga qaado ta ugu horeyso oo magnesium anu markaan dhalay jirkooda lafahoo dhan ayaa xanuunay waxaan islaa maxaa ku haysta magnesiumkaygi ayaan iloobay intaan qaato so magnesiumkiina qaata ironkiina qaata hadduu dhiig naga tagay muuqaalo badan ayaan soo dhigi doonaa oo naytusi doonaan cuntada cunaya waxaasoo dhan taasina la socda so waa kaas walaalayaal haddii aa weliyana daawanaysiin fadlan like noogu dhufo muuqaalkan comment yar noo soo dhig meesha dadka la sheer garee subscribe-kana anaga iloobina waan dhukanaya meel kasta adduunyada joogtiin maca salaama